Assalaamu calaykum. Maanta casharkeena waxaan ku dhigan doonaa unit 2 exercise-kiisa ama cutubkii labaad ee weekii hore aynu dhiganay layliskiisa baynu qaadan doonaa. Haddaynu eegno qaybtan ugu horeysa 2.1 waxaa lagu yiri find the right answers hel jawaabaha saxda ah for the question su'aalaha. Marka su'aalahan halkan lagu qoray ee 1 ilaa 9 ka ah ayaa jawaabadan waxa lagu qoray a ilaa I. Marka su'aal kasta jawaabta ay saxda ku tahay ayaad ku beegi doontaa. Koobaad haddii kaga bilowno waxaa lagu weydiiyey where is the camera meeday kamaradi marka waxaa lagu weydiiyey meesha kamaradu taalo ama goobtay taalo waxaad ka baadhisaa halkan jawaabaha markaa jiiday sax ku tahay in your bag shantadaaday ku jirtaa marka koobaad jiiday sax ku tahay labaad haddaynu eegno is your car blue gaarigaagu ma blue ba marka midab baa lagu weydiiyey midabka gaarigaaga marka jawaabaad ka baadhisaa midabka ida waxaa kugu qoran black madow افتنا وحكوا ورا no ما display يسوى مدو مركا سؤاشات هديسا waxay ka bilaabmayso su'aashaadu haday ficil caawiye ka bilaabmayso I is ama are hadba ficil caawiye haday ka bilaabmayso waxay jawaabtaadu ay ka noqonaysaa no ama yes marka no ama or yes questions baa la yiraahdaa su'aalahan ka bilaabma ficil caawiyaasha marka maadaama oo ay ka bilaabmayso ficil caawiye jawaabta saxda ku tahay waxay noqonaysaa no it is blue made was blue oo ifta labada ifta sax ku tahay saddexaad hadaynu eegno isliinta from London liinta ma London bay ka timi magaalada London marka magaalada raadinaysa halkan magaalada London baa halka ku qoran halkan kale wax ku qoran no she is America made Mareykanka ka timi su'aasha lagu weydiiyey maxay ka bilaabmaysaa ficil caawiye is bay ka bilaabmaysaa marka jawaabtaadu waxay sax kugu noqonaysaa no it she is America iyada Mareykanka ka timi oo ejda marka saddexaad ejday sax ku tahay afraad waxaa lagu weydiiyey am I late anigu ma habsan baan ahay ficil caawiye ka bilaabmaysaa soo maaha marka waxay sax kugu noqonaysaa sida oo ah yes you are adigu habsan baa tahay shanaad waxaa lagu weydiiyey where is Anne from Anne halkay ka timi London eeday sax ku tahay marka shanaad eeday sax ku noqonaysaa London magaalada London bay ka timi lixaad haddii lagu weydiiyey what color is your bag waa maxay kalarka shantadaadu marka ida midabka qurada himkaada ku haysta waa black marka iiday sax ku noqonaysaa black madowga toddobaad are you hungry aad miyaad gaajoonaysaa ficil caawiye ka bilaabmaysa soo maaha marka biiday sax ku noqonaysaa no I'm not may anigu ma gaajoonayo sideedaad haddaynu eegno how is George siduu yahay waxay sax ku tahay ida oo very well isagoo aad buu wacan yahay ta ugu dambaysa 9 ka ah who is that woman waa tuma gabadhaasi marka sagaalaadka jawaabta qura imkayno harsan waxay noqonaysaa my sister walaashay marka diiday sax ku noqonaysaa ta sagaalaad oo my sister ah qaybta 2.2 haddaynu eegno waxaa lagu weydiiyey make questions with these words kelmadahan su'aala ka dhig ta koobaad oo kale tusaale leeno si haddaynu eegno kelmadahan baa la isku habeeyey si su'aal looga dhigo marka ficil caawiye baa laga bilaabay is your mother waa lagu xigsiiyey at home waa lagu dambeysiyey marka waxay noo noqotay is your mother at home hooyada guriga ma joogtaa labaad haddaynu eegno ficil caawiyaha laga bilaabay your parents waa lagu xigsiiyey wellna waa lagu dambeysiyey marka su'aashu waxay noqotay are your parents well waalidkaa ma wacan yihiin saddexaad haddaynu eegno ficil caawiyanu ka bilaabanaa your jobna waa ku xigsiinaynaa interestna waa ugu dambaysiinaynaa marka su'aashu waxay noqonaysaa is your job interesting shaqadaada xiisa ma leedahay afraad haddaynu eegno ficil caawiyanu ka bilaabanaa open today waan ugu dambaysiinaynaa marka waxaynu noqonaysaa are the shops open today dukaamadu maanta ma furan yihiin shanaad haddaynu eegno ficil caawiye aana waynagu jiraa laakiin waxaynugu jiraa where oo kelmadihii su-aaluhu ka bilaabi jireen soo aragnay ka mid ah marka haddaad kelmadaha ku aragto where when what kelmadaha noocaasa soo aragnay iyagaad ka bilaabaysaa ficil caawiyana waad ku xigsiinaysaa marka su-aasha shanaad waxaynu noqonaysaa where are you from xaggaad ka timi lixaad haddaynu eegno ficil caawiye baa inagu jira isagaad ka bilaabaysaa are you interested in sports adigu miyaad xiisaysaa sportska toddobaad haddaynu eegno is baa inagu jirta ficil caawiye isagaan ka bilaabaynaa is the post office near here xafiis boostadu halkan ma ka dhow yahay sideed haddaynu eegno ficil caawiye inagu jira isaga ka bilow are your children at school ciyaalkaaga ma joogaan iskuulka sagaalaad haddaynu eegno waxaan ka bilaabaynaa ficil caawiye inagu jira laakiin kelmadihii baa inagu jira su'aalaha loo isticmaali jiray ee ay ka bilaabi jireen oo why ah marka whyda iyadanu ka bilaabaynaa ficil caawiye ku xigsiinaynaa why are you late maxaad habsan u tahay insha allah maanta halkaas ayaan ku joojin doonaa
exercise qaybtiisa labaad waxaan qaadan doonaa insha allah maalinta beriya intaa ka horeysa wassalaamu calaykum